madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabelle Mudane Cali Cabdullaahi Cosoble oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib socdaal uu ku tagay deegaanada hoostaga gobolka Hiiraan ee bartamaha dhulka Soomaaliya oo maamulkiisu Hirshabelle hoostago ayaa xafiisyo ka tirsan dowladda Soomaaliya ku eedeeyay inay cunaqabateyn dhanka duulimaadyada ay ku hayaan deegaanada maamulkiisu uu ka harimiyo gaar ahaan magaalada Jowhar. Mudane Cosoble ayaa ku hanjabay in maxkamadda ay la tiigsan doonaan shakhsiyaad uu sheegay inay ku howlan yihiin cunaqabateynta deegaanada Hirshabelle. wuxuu intaa ku daray inuu qadka telefoonka kula xiriiray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya isla markaana uu u sheegay in arintaas uusan ka warqabin waxaana uu ku celceliyay inay jiraan shakhsiyaad ka hooseeya xafiiska ra'iisul wasaaraha oo arintaasi ku lug leh. waxa ugu maqaalaa in uu jiro amar ka soo baxay dhinaca Muqdisho. amarka anigu haddaan maqlay waxaan ka wareystay ra'iisul wasaaraha oo aan telefoon kula hadlay anoo guulo burta jooga. ra'iisul wasaaraha wuxuu ugu yiri anigu arinta lama socdo. طبعا hadduusan marba ra'iisul wasaarihi uusan la socon waxa ay noqon kartaa xafiisyo ka hooseeya ra'iisul wasaaraha. shaqooyin iyo dana badan iska jiraya in meel sida la yeelo in wax la qasbo in wax la wareejiyo. Jowhar cunaqabateyn lama saari karo. haddii amar laga soo saaray dowladda dhexe ka soo baxay uu jiro ee dhahaya Jowhar laguma degi karo, diyaaradaha jaadka Jowhar kuma degi karaan, taa annaga waxaan u qaadanaynaa inay tahay embargo la saaray Hirshabelle iyo magaalada Jowhar. dabcan taana dastuurka ayaa ka jawaabaya, baarlamaanka federaalka ayaa ka jawaabaya hadday sharci tahay. waxaana sharci ahayna cidna laguma dhaqi karo, cidnana annagana laguma dhaqmi karto. airportka waxa ahay Jowhar ama Cisiley inay badeeca ka soo degto dhici maysa iyo shakhsiyaad ayaga raba inay ku awrkacsadaan dana ay leeyihiin waa ay jiraan mas'uuliyadna sheeganaya. madaxweynaha Hirshabelle Cali Cabdullaahi Cosoble waxa uu dhaliilay in aanu isku xaquuq ahayn dowlad goboleedyada ka jira Soomaaliya. dalka dastuur ayuu leeyahay, dastuurka ayaana isku haya. waa dowlad goboleed kale ka xuquuq yarin ma jirto. hadday dhacdo in go'aano ka dhan ah Hirshabelle la soo saaro taasu waxay wiiqi doontaa qarannimada Soomaaliya, waxay meel uga dhici doontaa midnimada Soomaaliya. sababtoo ah laba dowlad goboleed midna inay dekedo leedahay caalamkana heshiisyo la galayso, midna la yiraahdo maya in mid ay u fasaxan tahay diyaaradaha jaadka inay ka soo degaan, midna la yiraahdo annaga hor istaagayna. taasu wixii Soomaali isku diiday Soomaa. Cabdinaasir Maxamed, Telefishinka On Cable, magaalada Muqdisho.